بسم الله الرحمن الرحيم. buuggayga soo socda ayuu muuqaalkani ku saabsan yahay. Buuggaas wuxuu talo siinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan ragga waqtigan jooga, waayo maanta adduunka aynu ku noolahay rag iyo dumarkii waxay soo arkeen colaad, haddana waxay ogyihiin in aanay kala maarmayn, waayo dabiiciga sidaas ilaahay baa sidaa inoo abuuray. dadka aynu ku dayanaana furitaankooda badan reer galbeedka Yurub iyo waqooyiga Mareykanka boqolkiiba 70, inkastoo la qarinayo oo caalamiinta daacadii ay leeyihiin way ka badan tahay. burburka ragga iyo dumarka yiri waan isjecelahay 3 sano ka hor ay 3 sano ka bacdi aanay is arki karahayn. marka buuggaas waxaan isiri 20kii sano ee waaya aragnimadayda aad la wadaagtid dhalinyarada maanta jooga, waayo dhalinyarada maanta jooga talooyin qaldan ayaa telefishinka iyo social mediaha iyo buugaagta dad aan war u hayn ay siinayaan. marka waxaan dad qof uu ku dhageysto dadkii dhageysiga kuma fiicna. dhageysigu wuxuu u baahan yahay waqti. dhageysigu waxa weeye cilmi gaar ah, isaga si gaar ah loo barto. qofku qof dhageysto aanu ka fikirin sidaan ugu jawaabaa intuu hadlayo. haddaad imika BBC daawato, haddaad daawato dooda golaha sare Ingiriiska, nimo waaweyn oo iscaayaya, ra'iisul wasaare iyo mucaaradka ka haysto sida ciyaalka isma waxaas sameeyay, annaga waxaasaan u sameynay, intaasaan u tarnay. haddaad freelance eegto sidoo kale laakiin waa riwaayad loo dhigayo tiyaatarka oo garanaya wadankiini tiyaatara ku ooli jiray, dad ay wax matalayaan. noloshu waxay noqotay tiyaatar. siyaasiyiintuna matalaya. Mareykanka haddaad tagto madaxweynahooda waa nin weyn oo been sheegaya, ama dimuqraad ha ahaado ama republican ha ahaado, been ku salaysan oo dadkiina aanay beentiisa qabanahayn. waa riwaayad dadka loo dhigayo. marka maxaa dadkii la yaabay? dadkiina way iska qasan yihiin, mise waxay ahayd dadku inay iska qabtaan siyaasiyiinta, waayo siyaasiyiintu kamay soo bixin cirka sida roobka, kamay soo di'in dhulkana sida dooga, kamay soo bixin ummaday ka soo baxeen. dugsiyay tegeen, jaamacaday ka soo baxeen, hooyooyin iyo aabayaal baa dhalay. bulshada ka mid ah, bulshada wax ka qaldan yihiin. dumarka haddaad nin tahay, dumarku cadowgaaga maaha. dumarku waa quruxda adduunka. inaad eedeysana maaha. aniga 20 sano 17 jir baan ku bilaabay jacaylka dumarka. 11 jir baan ku bilaabay dumarka waaweyn xiiseyn jiray, siday u egyihiin, codkooda, aragtidooda. subxaan allah. ragguna uu kala dumar jecel yahay. raggu waa wada dumar jecel, laakiin dadka qaar baa ragga qaar baa dumarka aad u jecel. arka kuwaasaan ku jiray. deedna 11 jir doonaya markay 20 jir tahay ama 17 jir tahay oo kaa weynti qof weyn bay kuu tahay. 11 jir aad la hadasho ma garanaysid sida loola hadlo, ay ku tiraahdo maxaan kugu falayaa, macaanaan ku siinayaa. haddana 17 jir noqoto, aad shukaansato 20 jir ama 25 jir, ay ku tiraahdo macaanaan ku siinayaa, maxaan kugu falayaa. saad u wado waad baranaysaa. waxaad baranaysaa waxay haa ku yiraahdaan, waxaad baranaysaa waxay maya ku yiraahdaan, waxaad baranaysaa ta khiyaameynaysa, waxaad baranaysaa ta wanaagsan. dumarka badankiisa waa dad fiican, maasha Allah. markii aan weynaaday dhowr jir gaarayna waxaan xiiseeyey. barigaan yaraa waxaan xiiseyn jiray dumarka waaweyn. 20 jir wax weyn buu ku yimid. marka 17 jir, 18 jir, 19 jir tahay, 30 jirka, 19 jir markaa 30 jirtay, 30 jirka qof weyn bay ku tahay. markaan 20 jir gaarayna waxaan xiisay 20 jirka iyo 25 jirka iyo 19 jirka.
abti miyaad ii ahayn bay ka odhanayaan. Marka waa inaad barato sida loogu jawaabo, sidaad u hesho waxaad doonayso. Waxaasoo dhan waxay ku xidhan tahay talada wanaagsan iyo sidaad u doonayso inay kaa dhab tahay. Waayo dumarka waxay ka odhanaysaa noocayga ma tihid, haddana hadhowtooda waxay ka odhanaysaa waan ku jecelahay, la'aanta ma noolaan karo. Dumarku qof xabsi ku xidhan bay jeclaadaan. Oday weyn bayd arkaysaa gabar yar oo 60 jir oo 90 jir la socota. Yurub bay ka dhacdaa. Waxaad arkaysaa 50 jir nin weyn oo inan yaroo 20 jir wata oo quruxdaad yaabtad oranaysa maxay siduu ku helay. Waxaad arkaysaa nin aan waxba haysan oo gabar jeceshahay. Waxaad arkaysaa nin gaaban oo gabadhi ka odhanaysa ragga gaaban kama helo, haddana ay ka odhanaysa waan jecelahay. Walaa waqti weyn isbedelayuun calafkun buu iska ahaa. Waxaad arkaysaa nin dheer oo gabadh muxuu ahaayey guursaday qurux badan. Waxaad arkaysaa nin caata ah oo gabar qurux badan guursaday. Waxaad arkaysaa nin buuran oo gabar qurux badan guursaday. Waxaas dhan waxaan kugu sheegay dumarku waxaa kama hela markay ku yiraahdaan waxay way iskama ka eriyeyso, laakiin waa dabeecad bulshadu ku dhalisay. Adigu waxaad doonaysaa muhiim. Hadday taasi ku diido mid kale ku yeelaysa, mid kale ayaa ku yeelaysa. Adiga waxaad u baahan tahay waxaad doonayso. Haddii dumarku nin xabsi ku jira iyo nin buuran iyo nin caata ay ka hesho, adiga sababay kaaga heli weydaa ma jirto. Ha qancin baan kaaga wadaa. Waxay yiraahdaan iyo waxay ku jawaabaan waa kala laba. Taasi waa taas. Waa inaad ogaato waxaad doonayso. Aniga dumar badan baa igu yiraahdaan caata tahay, igu oran jiray caata tahay, ragga caatada kama helno. Waxaad arkaysaa qaar in yar 1% ayaa isugu kala dhacda sheekado. Marka 1% aniga way iga badan tahay. 99% kale suuq isuma lihin. Waayo isku fikirba ma nihin. Waxay doonayaan ma doonayaan, waxaan doonayo iyaguna ma doonayaan. Marka 1% halkaasaan tagaya. Tan kaagu leeyahay waxa weeye inaad ogaato waxaad doonayso. Waayo ragga badankiisu Yurub jooga qaladka ugu badan ay sameeyaan ay dumarka ku eedeeyaan hadhowna waxaanay aqoonin sida dumarka loo doorto ay doonayaan. Dooro gabadha adiga ku doonaysa. Ta ku warwareejisa, ta telefoonka kaaga jawaabi weyda, ka tag. Waa calaamadaha lagu garto ugu horeeya. Tan doonayna kuu sheego wata. Qaladku iyo furitaanku wuxuu ka dhacaa maalinta ugu horeysa shaqaasi. Wixii kale bugaygu macluumaad dheeraad uu siinayo sida loo doorto gabadha fiican, calaamadaha lagu garto gabadha fiican, sida loo dhaqo. Doorashada gabadh inaad soo xirigelisa way fudud tahay, laakiin ta la isku haysta ee ragga badankiisa ku adag waa sidii loo dhaqi lahaa. Waa buug khatar ah, wax badan buu kaa caawinayaa. 20 sano oo aniga kacaakuf ayaad adigu waxaad ku helaysaa maalin gudaheed.